ninka ragi waa ka ugu dulqaata xaaskiisa xataa kelmad aan habboonayn hadday ku tidhaahdo. waxaa tusaale kuugu filan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam iyo caaisha way iskhilaafeen maalin, markaasuu dabeetana ku yidhi yaad raalli ku tahay caaisha inaynu isula tagno, atardayna bicumar, cumar raalli ma ku tahay? markaasay tihi may, cumar waad adagii. markaasuu yidhi aabbaha raalli ma ku tahay abibakar? masay ku tihi haa. abibakar baa loo wada tegey. markii abibakar la hor istaagay ayuu rasuulku ku yidhi caaisha tatakallamin ama takalam, maana hadla mise aada hadli? mise caaisha ku tihi takalam walaa taqul illaa xaqa, adigu hadal laakiin been ha sheegin. macnii nebi ilaahay qof keliya kuma odhan karo been ha sheegin iyadoo run looga bartay. macnii caaisha xaaskiisii kamuu xanaaqin, uu ugu dulqaatay. abibakar baa xanaaqoy sida dhirbaax, kadibna way soo cararto nebiga gadaashiisa istaagtay. markaasuu dabeetana yidhi abibakar dee dagaalkugumaanaan iman. markaasuu dabeetana u baxay abibakar isagoo xanaaqsan. suu dabeetana caaisha intuu rasuulka eegay buu yidhi madarkii ninka saan kaaga qabtay, markaa ugu dulqaaday xaaskaaga.